بسم الله أنا ورياشة كهول قال الدجموين كجلمدو سدوا كلنا مثلنا دمان ورياشة الدجموين كي يدجانا الجلمدو وحن شركة شرايدو قبنا الناسان وعدنا موقف كأنه كوادن هند الشرعيات كعيشتي وزارة دور ففنت الجلمدو إلا كتشانيو وحن عضينا إننا كو إننا نقيب كهين نلقونا مثلين شركاس لبو وحي وزارة دويرتي ضد السجود شرا تكتوكره تدور بهند سقل دلو استعماله يدور قف أو كتر سن وربهين الدولة ده وعن هالكاس كفهني إن وزارة أي ربطة إلى الأحمر صدق كاس دوكومنتي أي ربطة إلى كعبرسه ورباهين تدجانا ذا جلم ذو كهول كشة صدق كده مركز حير الله سبحانه وزير كورفافين تجلم ذو علي محمود فارح على السيكو وحن وجاني وزارة أي سم فرصة بسين دولين كلنا تشن دولين ورياش يوربهنا ذا كهول قال دجانا ذا جلم ذو وحايقو يرتاي حركة ورباهين تجلم ذو أفر waxaan u cadeynaynaa madaxweynaha galmudug golaha wakiilada xafiiska qaramada midoobay ee untamis iyo ururada warbaahinta ee dalka ka hawlgala inaan wariyaasha galmudug laga tashan xeerkaas sidoo kalena waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan hirgelinta xeerkaas lagu afduubayo xorriyadda warbaahinta iyo wariyaasha galmudug ugu dambeyn haddii ay wax u dhacaan sida ay hadda wasaaraddu wax ku wado isla markaana xeerkaas la ansixiyo waxaan u sheegaynaa ugu baaqaynaa ogeysiinaynaa cid walba ay qusayso إن أنا برينا لو قمن دون حركاس لقونا دقي دون ورياشة كهول قلا دقموين كيديجانا ذا جلمدو. وعن هالكن كوكبناي شركة جرائد ويدويهن دمان ورياشة ديجانا ذا جلمدو كسر وسعفات كده كرتامبا وحنا وباقينا مدحينا أحمد قرقور إن وزير كيسا ورفافنتا أو قعنت كقبت أرنتن ودوني إن ورياشة يمامل كأوسكيهور كانوا وحنا ورقنا حير كان يلقوا دي سدوا كلا حل حساسية أو ديجان كوسكو ديارنا يدرسوين waxaana ugu baaqaynaa mar kale golaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada Axmed Cabdikaari Qorqorba in wasiir Cali Seeko uusan la tashi kala sameeynin wariyaasha deegaanada galmudug isla markaana xeerkan oo iska horkeenayo maamulka iyo wariyaasha haddii sida ay wasaaraddu wax u wado ay ku hirgalaana waxaan cadeyn doonaa in deegaanada galmudug wariyaasha ka howlgala iyo maamulka galmudug ay dhexdooda ka abuuri karto falqalalo weyn isla markaana galmudug ay safka hore ka gali karto deegaanada lagu caburiyo wariyaasha waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale ururada warbaahinta ee Soomaaliya iyo sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo taageero siiya wasaaradda faafinta iyo sidoo kale in ayaguna ay arintan soo farageliyaan isla markaana ay qatar ku tahay xorriyadda hadalka waxaan u aragnaa inay tahay arin caburina ay jugleena iyadoo horey maamulka galmudug ay dhowr jeer ay deegaanada galmudug wariyaal si sharci darra kaga afduubteen maantana beelaha ay u yihiin wariyaashu maadaama xeer iyadoo ay soo qoratay ay doonayso in la ansixiyo sidaad aragtaanba shirkan jaraa'id waxa u dhan wariyaasha ka howlgala degmooyin ka tirsan galmudug sidoo kalena wariyaashan waxay metelaan dhammaan wariyaasha galmudug ka howlgala ujeedka ugu weyn shirkan jaraa'id aan u qabanay halkan aan isugu nimidna waxa uu yahay inaan cadeyno mowqifkeena ku aadan waxa wasaaradda warfaafinta ugu yeertay hindisa sharciyeedka saxaafadda galmudug waxaan u aragnaa hindisa sharciyeedkaasi in uu yahay dokumenti loo sameystay ama loo qoray in warbaahinta lagu caburiyo maadaama shirka looga tashanayo aysan qayb ka ahayn guud ahaan warbaahinta madax bannaan marka aan sidaas leenahay waxaan ognahay in dad aan warbaahinta ka shaqeyn iyo wariyaal kooban oo ka howlgala warbaahinta dawladda la isu keenay la sheegay inuu yahay hal kulan oo looga tashanayo xeerkan sidoo kalena la doonayo in wax fursad la siiyo wariyaasha madax bannaan sidaas darteed waxay noola muuqataa caburin iyo cagajugleyn iyo dokumenti loo sameystay berito si sharci darro wariyaasha in loogu maamulo xorriyadooda iyo madax bannaanidooda sidaas darteed waxaan cadeynaynaa mowqifkeena ku aadan arrintaas si guudna wariyaasha madax bannaan ee ka howlgala galmudug waxay diidan yihiin hindis sharciyeedkaas sidoo kalena qayb kama yihiin kumana dhaqmi doono wixii ka soo baxa hindis sharciyeedku ma ahan tababar ma ahan seminar waa shaqo inta badan marka la jaangooynayo masiiri ah taasoo u baahan la tashiyo badan taasoo u baahan galaangal taasoo u baahan in talo iyo turxaan bixinba laga geliyo cidda shaqada kula berina ku shaqeynaysa wariyaasha galmudug waxaa qasab ahayd oo aan sunno ahayn in dhammaan wariyaasha galmudug deegaanada galmudug meel kastoo ay ka joogaan in sharcigan la horgeeyo wasaaraddu hordhigto kala doodo kadibna wixii la isla turxaan bixiyo dib ugu soo laabtaan wasaaradda sidaasna uu u noqdo sharci uga soo gudbay waxaa la yiraahdaa wariyaashii kadibna hay'adaha sharciga ay ugu horeyso fulinta oo wasiiradii uu gudbo kadibna baarlamaanka uu gudbo taas uu soo marin darteed annagoo ka duulayna ayaanu aragnaa sharcigan
in ay wax badan ay ka dhiman yihiin taasoo ah sababta kaliftay inaan shirkan jaraa'id qabanno intaa kadib waxaan rabnaa madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqor innaka oo ku kalsoon doorka uu warbaahinta ka joogta deegaanada innakoo kalsooni buuxda ku qabnaa in uu si gaara fariintan uu tixgelin doono innaka kalsooni badan ku qabnaa in ka shaqaynta warbaahintu ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan maamulkiisu uu inta badan diiradda saaro inuu mataqaanaayey xoogga isugu gey doono arrintan si dhabana ugu kurgeli doono sidoo kale waxaan golaha fulinta iyo kuwa sharci dejintaba ee dowladda galmudug ayakana ugu baaqaynaa in sharcigaas haddiiba uu soo gaaro uu yahay mid aan lagala tashan laga talagelin lana fariisan ciddii shaqada ku leeda wariyaasha galmudug